kulankan oo ka dhacay gudaha hool ku yaala madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ku sugnaa saraakiisha qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo waliba mas'uuliyiinta maxkamadda ciidamada qalabka sida darajadeeda koowaad iyo midda sare. Dhammaan kulanka waxa uu ku saabsanaa gobaabin iyo talooyin ku aadan shaqada ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa qaybta 6aad ay ka hayaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mas'uuliyiintii ka hadashay dhammaan waxay soo hadal qaadeen 9kii bishan dhacdadii ka dhacday duleedka magaalada Baydhabo taasoo ay ku nafwaayeen in ka badan 6 ruux oo uu ka mid ahaa ganacsade si weyn looga garanayay magaalada Baydhabo. ugu horreyn waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute isagoona sheegay inaysan jirin askar xumaata balse inta badan taliyaashu ay xumaadaan. markay dhibaato dhacdo oo qof dilo sargaalka xukuumaya qofka hadii jawaabtiisa kaliya ay noqoto waa ku daba joognaa wuu baxsaday waa ruqsaynay hadii saas noqoto anaga maxkamad ahaan waxaan noogu qorshaysan in loo noqdo qaacidadii dhahaysay askari ma qaldame taliyihiisa qaldamo. gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya General Liibaan Cali Yarow ayaa dhankiisa sheegay in loo dulqaadan doonin cid walba oo qalqal galisa shacabkani. saraakiisha iyo askarta waxaan ugu digayaa askarigii ka qayb galo shaqo qabiil ama shaqo shabaab wuxuu la mid yahay sida shabaabka oo kale waxba ma dhaamo wuxuu qaadanaa sharciga ugu adag xukunka ugu adag ayuu shariicada islaamka aan waafajinaynaa. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo gabagabadii hadalka dhankiisa qaatay ayaa ku booriyay dhammaan saraakiisha qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya inay gutaan waajibaadka saaran waxaana si gaar ah ugu mahadceliyay mas'uuliyiinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya howlihii wanaagsanaa ee maalmihii ugu dambeeyay ka qabteen magaalada Baydhabo. waxaan kaloo u mahadcelinayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida oo la socoto dhaqdhaqaaqyada ciidamada qalabka sida iyo cadawga habeenii maalin hortaagan oo dhibaateynaya xogtooda iyo dambiyadooda daba taagan oo tilaabo fiican iyo shaqo fiican ka qabatay ayagana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa aadaan u soo dhaweynaynaa waynala joogeen labadan bari. 9kii bishan ayay ahayd markii duleedka magaalada Baydhabo uu ka dhacay kiis ku saabsanaa isqabqabsi dhulka taas oo ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 6 ruux oo uu ka mid ahaa ganacsade si weyn looga garanayay deegaanada Koonfur Galbeed kaas oo lagu magacaabi jiray Cali Margus. Siraaj Shaysa warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo.